mas-uuliyiinta maamulka gobolka Togdheer oo maanta shir jiraayid ku qabtay gudaha magaalada Burco ayaa ka dhawaajiyay shirkada Alfallaax al-axbaabi oo ka shaqeysa dalka Somaliland isla markaasina cadeeyeen mas-uuliyiintani inay tahay shirkad madax bannaan oo gaar loo leeyahay kuwaas oo sheegay in xukuumadda Somaliland wax luga ku lahayn shirkada Alfallaax al-axbaabi oo muddooyinkii u dambeeyay isku maandhaafsanaa xukuumadda Somaliland iyo wakiilka shirkadani taasoo ay hore u sheegtay xukuumaddu inay yihiin agabkan ay ku qodo Riigagan agab dadweyne ayaa waxa maanta si rasmi ah xukuumaddu ugu wareejisay wakiilka agabkani oo wakiil ka yahay Axmed Xasan Cabdiraxmaan Ilkacase أنا كهاد له هالكن هوشن حوش كان عم نحجوجنا وحوش كي وسارد خيرات كبيها ينكي شركة لها مركي هوري بارتان با سعودي بارتان كا سعودي وحولها إن هنتنا يدولة دولة هي إنه بريفدي هاي ونن موادن كإمارات كعرب تقولي هاي هوش هاسي فضل الله ويسود ماتي وحنا كسود ماتي وأنا مهد وعلينا مدحونا تمرد السومالان هي وسير كخيرات كبيها markii aanu si qoto dheer hawsha u baadhnay ee loo baaday anagoo si wada jiroodii muwaadiniina waxa cadaatay in hawshan ay iska leeyahay ninkaas Alfallaax al-axbaabi inuu leeyahay hantidan iyaguna waxa halkaasi ka hadlay barasaabka gobolka Togdheer Xamse Maxamed Cabdi taliye ku-xigeenka qaybta booliiska ee gobolka Togdheer iyo isku duwaha wasaaradda horumarinta biyaha iyo khayraadka ee gobolka Togdheer kuwaasoo dhammaantoodba u cadeeyay in qalabkani leedahay shirkada Alfallaax al-axbaabi isla markaasina ay tahay shirkad madax bannaan sida uu sheegayo Axmed Xasan bifadlilaahi way soo lamaatay arintaasi waxaanay cadaatay arintaasi inay hantidani uu leeyahay ninka la yiraahdo Falaax al-axbaabi oo imaaraati national ah oo muwaadin imaaraatiga oo hanti gaar ah uu leeyahay oo private laakiin sidii loogu adeegayo loogu shaqeynayo ummadda soo reer Somaliland inuu de hanti shirkad ay leedahay oo bareefada ay tahay qarankuna ka faa'iideysanayay marka ay nooca ku cadaatay xukuumadda go'aankeedii ay de ku wareejinayso hantiilihii iyo cidii wakiilka u ahayd marka sidaa darteed barasaabkii baa maaragtay gobolka madaxii ugu sareeyay waxa weeye anaguna gacan ku hayntaas baanu maaragtay mas'uuliyadaas gobol ahaan inoo wada saaray saasaan la qabnaa mar hadii la soo cadeeyay wasaaradda horumarinta biyaha ee Jamhuuriyadda Soomaaliland wasiirkeeda uu noo igmaday inaanu ku wareejino shirkadda Alfallaax khayriga ah iyadoo ay soo baxday markii hore wakiilkii hore ee shirkadan oo goobtan inuu taaganay maalintii hore ka sheegay in qalabkan ay leedahay dawladdu oo ay dawladdu shirkada maaragtay ku wareejisay hubin dheer kadib waxa cadaatay in qalabkan ay leedahay shirkada Alfallaax sida daradeed anagoo fulinayna amarkii wasiirka wasaaradda horumarinta biyaha Salaam Yuusuf Cali Koore oo na soo faray inaanu ku wareejino wakiilka cusub ee shirkada Axmed Ilkacase Maxamed Saciid Gaxnug telefishinka caalamiga badda 24 TV Burco